dardaaran rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa isagoo cali bni abi daalib la dardaarmaya ku dhahay caliyow ha seexan habeenkii adiga oo aan shan samayn kow adiga oo aan qur-aanka dhammaystirin labo adiga oo aan 4,000 oo dirham sadaqa ula bixin saddex adiga oo aan kacbada booqan afar adiga oo aan xafidin meesha aad jannada ka degayso shan adiga oo aan qancin kuwa kaa soo horjeeda wuxuu ku dhahay sidee ayay u suuragelaysaa rasuulkii ilaahayow markaa wuxuu ku yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasallam kow haddii aad akhrido 3 jeer suuratul ikhlaas waxaad dhammaystirtay qur-aankii labo haddii aad akhriso 3 jeer suuratul faatixa waxaad sadaqaysatay 4,000 oo dirham saddex haddii aad akhrido 10 jeer laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir waxaad booqatay kacbada afar haddii aad akhrido 10 jeer laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim waxaad xafiday meesha aad jannada ka degi lahayd shan haddii aad akhrido 10 jeer astakfirullaha alcadiim alladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum wa atuubu ilayh waxaad qancisay kuwii kaa soo horjeeday haddaba walaalka muslimka ahow caawa ku bilow waad aflixi in shaa allahu dardaaran rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa isagoo cali bni abi daalib la dardaarmaya ku dhahay caliyow ha seexan habeenkii adiga oo aan shan samayn kow adiga oo aan qur-aanka dhammaystirin labo adiga oo aan 4,000 oo dirham sadaqa ula bixin saddex adiga oo aan kacbada booqan afar adiga oo aan xafidin meesha aad jannada ka degayso shan adiga oo aan qancin kuwa kaa soo horjeeda wuxuu ku dhahay sidee ayay u suuragelaysaa rasuulkii ilaahayow markaa wuxuu ku yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasallam kow haddii aad akhrido 3 jeer suuratul ikhlaas waxaad dhammaystirtay qur-aankii labo haddii aad akhriso 3 jeer suuratul faatixa waxaad sadaqaysatay 4,000 oo dirham saddex haddii aad akhrido 10 jeer laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir waxaad booqatay kacbada afar haddii aad akhrido 10 jeer laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim waxaad xafiday meesha aad jannada ka degi lahayd shan haddii aad akhrido 10 jeer astakfirullaha alcadiim alladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum wa atuubu ilayh waxaad qancisay kuwii kaa soo horjeeday haddaba walaalka muslimka ahow caawa ku bilow waad aflixi in shaa allahu dardaaran rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa isagoo cali bni abi daalib la dardaarmaya ku dhahay caliyow ha seexan habeenkii adiga oo aan shan samayn kow adiga oo aan qur-aanka dhammaystirin labo adiga oo aan 4,000 oo dirham sadaqa ula bixin saddex adiga oo aan kacbada booqan afar adiga oo aan xafidin meesha aad jannada ka degayso shan adiga oo aan qancin kuwa kaa soo horjeeda wuxuu ku dhahay sidee ayay u suuragelaysaa rasuulkii ilaahayow markaa wuxuu ku yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasallam kow haddii aad akhrido 3 jeer suuratul ikhlaas waxaad dhammaystirtay qur-aankii labo haddii aad akhriso 3 jeer suuratul faatixa waxaad sadaqaysatay 4,000 oo dirham saddex haddii aad akhrido 10 jeer laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir waxaad booqatay kacbada afar haddii aad akhrido 10 jeer laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim waxaad xafiday meesha aad jannada ka degi lahayd shan haddii aad akhrido 10 jeer astakfirullaha alcadiim alladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum wa atuubu ilayh waxaad qancisay kuwii kaa soo horjeeday haddaba walaalka muslimka ahow caawa ku bilow waad aflixi in shaa allahu dardaaran rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa isagoo cali bni abi daalib la dardaarmaya ku dhahay caliyow ha seexan habeenkii adiga oo aan shan samayn kow adiga oo aan qur-aanka dhammaystirin labo adiga oo aan 4,000 oo dirham sadaqa ula bixin saddex adiga oo aan kacbada booqan afar adiga oo aan xafidin meesha aad jannada ka degayso shan adiga oo aan qancin kuwa kaa soo horjeeda wuxuu ku dhahay
sidee ayay u suuro gelaysaa rasuulkii ilaahayow markaa wuxuu ku yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasallam kow haddii aad akhrido 3 jeer suuratulikhlaas waxaad dhammaystirtay qur-aankii labo haddii aad akhriso 3 jeer suuratulfaatixa waxaad sadaqaysatay 4,000 oo dirham saddex haddii aad akhrido 10 jeer laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir waxaad booqatay kacbada afar haddii aad akhrido 10 jeer laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim waxaad xafiday meesha aad jannada ka degi lahayd shan haddii aad akhrido 10 jeer astakfirullaha alcadiim alladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum wa atuubu ilayh waxaad qancisay kuwii kaa soo horjeeday haddaba walaalka muslimka ahow caawa ku bilow waad aflixi in shaa allahu dardaaran rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa isagoo cali bni abi daalib la dardaarmaya ku dhahay caliyow ha seexan habeenkii